qiimaha badan wareerka is yaqaana maxaan ka wada wareerka is yaqaana maxaa laga wada wareerka is yaqaana ha laba qof oo waxa jira intaas oo sano isqabto oo is aqooninba isma yaqaanaan maxaa loo baahan yahay in la isbarto waxaan rabaa inaan caawidin sheego haddaad doonaysaan insha allah inay reeraheenu noo najaxaan baraninkaaga waxa laga yaabaa inaad dhahdo baraninkaaga waan ba aqaanaaye 5 baan isu dhalay sheekh sax 5 baan isu dhalay 30 sanaan isqabnay waa maxay ninka aan saacadan baranayo waxa laga yaabaa nolosha aan doonayo iyo qoyska aan doonayo een hadda ka hadlayno inay ka xigtay inaad isbarataan hal tusaalaan ku siinaya mesela warqadii qalin baad soo qaadaysaa odayga u dhiib adiguna warqadii qalin qaado waxaad dada ii soo qor waxaad jeceshahay macaaba gabdhaha yarkaa si fiican u dhegaysta si fiican u dhegaysta waa jaanis inay soo marin baa laga yaabaa wiilasha aad la sheekaysanaysaan weydiiya waxa ay jecel yihiin haddaan isguursano maxaad jeceshahay aye cuntada maxaad ka jeceshahay cuntada noocee jeceshahay cuntada hadduusan ninka uusan ogeyn cuntaduu jecel yahay ma taqaan waxa dhacaya midishaga gabar deriska abu maalmaha kamida cunto ka soo cuni suu iska aamusan yahay miskiinku waxaad adigu u walwalaaqdo iska cunaa kolba waa bariis iyo baasto soo ma waa Soomaalidu waa inta bariis baasto koorsa laga bartaa taga koorsooyinka meelaha dad cunto fiican xataa aqoonin koorsooyin taga lacag ku bixi koorsada tag lacag ku bixi baro sida cuntada loo sameeyo wacdeeda ma ha kafta marka war xaqaa waay gabar deriska cunto ka soo cunaya marka dambe uu ku imaan wuxuu leeyahay heblaayo maanta cuntada inoo soo karisa dad ogtahay macaankeeda saa markuu leeyahay macnaheedu waa maxay adii tacbaan baa tahay waay adii sakaraad baa tahay baro marka weydii cuntada nooca uu cuno gabadhuna waa sidoo kale iyadu ku weydiinaya waxaad weydiisaa waxa uu ka cadhoodo weydii maxaa ka cadhootaa maxaad necab tahay oo ka ilaaliya waxa laga yaabaa inuu ku dhaho aniga ma jeceli anigoo maanta oo dhan maqnaa inaan guriga soo galo adoo telefoon ku hadlaya adnimo kuma jeclo wad soo moogidina meel ku qoro ha hadaba markuu soo dhow yahay telefoonka iska dhig عادي وكو شيغay ma jeceli buu yiri inaan guriga soo galo adoo telefoon ku hadlaya sax wuxuu ku yiri ma jeceli inaan adiga waxa tiri ma jeceli nin soo daaha oo soo wareego oo fadhi ku dir ku ani waxaan rabaa inaan isku bar seexano cisha markaa tukato kaalay ii imow aniga ila sheekayso ana sheeka u baahan u sheeg hadda u sheeg isbarashada la sheegay waa inta kadib waxaad weydiisaa maxaad ka cadhootaa markuu kuu sheego haddaad cadhooto maxaa ku dejiyaa hadduu ku dhaho ani markaan cadhoodo waxaan jeclaa inaan baxo daaha baxee ridda hau istaagina maxay reeruhu ku dumaan reeruhu waxay ku dumaan nin xanaaqay islaantiina ay isku tiirisid albaabka tiri ma baxaysa haddii kale inaad furtaa meeqaa reer intaa ku dumay ma baxaysid ilaa weyl ay furtaa لكن gabadhi baa waxay tiri anu hadaan cadhoodo qolkaas ku soo xidhaa hadaan cadhoodo anu waan inaan hadlaan jeclahay gabdhaha qaar baa markay cadhoodaan naqaska inay iska sii daayaan jecel inay meesh fadhiyaan baa laga yaabaa laakiin adu hayla hadlin hadaan xanaaqo ninka waxa la rabaa marka la xanaaqdo marka intuu aamuso sida culimada qaar kood aheen islaantaadu markay cadhooto beer u seexo caruurto dhanna seexi dariishadana soo xir TV-gana dami islaantu mar xagga ku dhaafto marka dama idun baa dhihi bal hadda farfariista bal waa xal waa caadi hadday islaantu ku dhaado anigu hadaan cadhoodo naqaska iska sii daayaa laylamana hadlo ninka daawadaadii wuu hayaa haddaba marka cadhooto waa aamusi shid adiguna naqaska iska sii daa qolaba sibay ku daawowday
labadan isqabta haddayna daawadii isu sheegin cudurkana isu sheegin sidee reerkaa ku dhaqmi karaa waxaa la yidhahdaa marka isbarasho isbarta ninkaaga insha allah haddaba reerka qiimaha badan waa reerka isyaqaana